أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وولاشي ومن باور أو يسون من نقطي. اللهم بارك. الحمد لله أنه عافمات قبنا. الحمد لله شكرا يا ربي. يا إذنكم إيه عافمات قبا. اللهم بارك. الحمد لله شكرا يا ربي. بارك الله فيكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أنا كسن للنبي سبحانه صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم. أنكم ما كنتم بقول الجار. بريان على سبكوري. فيديو أنا ربي إن صوصو سبحان الله علايس كنا الله يقول قرقاده أنا أنت هاي ستبع الله نقول قرقاده مرات كنا الله نود سهل دمانتين آمين إن شاء الله تعالى يهمي كنا بقى الله نود جارسيو آمين يا رب ربي ونتكون ما سنتين خير بدن كمان كن جار بقولال جار خير بدن الله يكسيو سد يقرب تاجنيدين أيا أنا إني قرب تاجن هذه جارسي سن مانتا هم بليداس أنجاري كبدن بيني كرتين إن شاء الله بالملاك الكريم إذن كان سيدوكر إن شاء الله بالملاك الكريم دمانتين هميين مرادكن الله نود السهل اللهم آمين اللهم آمين أنتي جرن الله عافية عاف ماذا عند الله سيو اللهم آمين أنتي باهن الله باهيتر اللهم آمين أقومها الله وقرقر اللهم آمين أنتي لما تسلام النقوص سنة نحرسي جنتك فردوسة الله كواريو اللهم آمين إننا قداشود الله نمفدنا وهنا نحرس اللهم آمين بارك الله فيكم ما هدنا إلى إسكاله بقول الجروني ما علينا ولا لا قالقة اللهم بارك أن جزاكم الله خير بنا لا بقول الجر ما أنت محادين وذا ولا شيء وأرن إلى سوق بستي وقبل أرن إلى سوق بستي وأنا أرن حنون كل وأنا كحم هذا من جعل السن والله أم بنفتي اللي مجعلي قف كل ولكن اللي مجعل السن قبلا ويلا الاستعلاء فيها بشيء كذا بتيمده لكن اللهم بارك وقصة قبل اللي وداكسه قبل ويل ويل كاستعلايين شيء كذا اللي قيس هم يان جيليا أيه شيء كذا جيليان فات أيه ذا جعل كسيد لو وذي يقول اسكت جعل أمور بالعادة الحيس وحول بمهار كده أراس كده وحول بدعين بارك الله فيكم يربع بيرالي نقطة jacaylkii sidii loo waday arrintii sidii loo waday ilaa wiilkuna luga u laaban gabadhana waxay ogeyd in arrintan soo afjarmatayba arrintan lugtan u laaban gabadhi kale ay hoos ka qabaa ayadana waxa u haysataa maxay heedanay lugtana u laabanba oo daacada siniinkeediyoodii u go'an yahay kaligeed u go'an yahay oo future la iska rabaayo horumar la iska rabaayo wax walba la iska rabaa in isla qaybsan nolosha dhan adii sidii gabadhi loo waday hamiinada kamid ah ayuu sheekada u soo bandhig u dhahay walaalay horta raali iga noqo gabadhii hore maanu kala bixin gurigayga igula nooshahay maadaama gurigayga igula nooshahayna adii sanadii dheer camal aan isqabaa sheekada gadaale ka timid subxaanallah laa yahdiik markaas ku dhahay walaalay arrin baa ii jirta arrintan waxaa fiican inaan ku waramo hadda inta hadda tool asiimo rajib lahayd asiimo radalac lahayd waan sameeynaya mar walbana waan sameeynaya ku dhahay yaani maalmahan waa hameenku soo bandhigay ka hor ayaa adigu afdaaf yar baa yimiday arintana soo baxday marka wuxuu ku dhahay mar walba waan sameeynaya ugu dambeyn istiqaartu ku ayaan gabadha ugu furay arinta ay keentay aan ugu furay istiqaaratu ku wixii khayr kugu jirno hadduu khayr ugu jirno way isqabeen hadduu khayr ugu jirno way kala tagayaan wuxuu dhahay yaan sheekani ku daalina wuxuu dhahay gabadhii waan isqabnaa guriga igula nooshahay labaas awlaad daraadad maadaama maamadii hooyaday aw ilmahayga hooyadood ay tahay banaan kuma tuurayo inkasta dadkii wadanka degan yihiin ay la degan yihiin wadankii ay la joogaan uu awooday inuu dhaho waalidka dhinaciisa ku sii sug walaale ani adiga waa noo kala dhamaatay maharkaagina waa kan inuu kala wad أنا قبل ده عصوب الشيء كده ينولشيد أو سمست يعني فيتشر أنا سمست هذا أيام سمين لها أنا سأت لها أساس إلى هيد أنا جموقت هاي يدك ولا لها بدي ما أنت أنت أنا نسوا بالنجاة وأنا أرني منا وحفي عنا هنا جوابي قصيصان كومنت كاتو الله كده مركا قبل ده أديو وحيو كده هاي ولا لا أنت سجرته قبل ده نبناكم مدركرو جور إرمجاسي دلبتي وقت بقعدنا سإرمجاسي قلت لوسو جوابيو هذا ولوسو دي مركور مرلبات كنقطي de maxaad ku haysataa bay tiri ma dadkeed u dirtid markaas wuxuu ku dhahay haddaan dadkeed u diro aabaheed ballanaan kala galnay
ballantan kala galnana waxa weeyaan waa lacag 10,000 ah ayuu yidhi haddaad gabadheeda ii furisid ninow waxa iisoo dhigaysa halkaas 10,000 maadaama aad yaraan isku soo guursateen gabadhan aad yaraan kusoo guursatay yacni nolosheeda waqtigeeda ma luminsid maadaama aad ii furisidna gabadhii aad iga tegisidna awlaadna meeshii joogto 10,000 oo xujo ah ayuu sheegtay ballanana la kala galay marka gabadhiina muu furino uu qabaa gabadhan iminka arrintii lasoo wadaasa aan isnaqaano oo arrintii iisoo sheegaysa ayaa gabadha kasoo tabisay yacni uu qabaa frustration ka qaaday gabadhii hurdo la-aan stress way diiqday waayo wax madaxa ka weyn waayo ballantu waxay ahayd waa laba kala baxay iyadu waxay haystay inuu ka tegay kala tegeen ay gurigana ku nooleyn ay gurigana la degaynayn ay guri kala degan tahay gurigii dadkeeda mise meel kala degan tahay ayay iyadu u haysatay subxaan allah laakiin arrintii baa soo baxday qofka markaa laqdabo iyo lilaahi meel ma wada galaan laqdabo iyo lilah horta meel ma wada galaan laqdabo lug qof u laaban weligii ma nasanay mana degayana subxaan allah markaa gabadha wuxuu ku dhahay walaalay ii dulqaado kuma dulqaadanaya tiriye maxayd arrintii inaga soo afjar waan ku jeclay sidanaa ku galaacan kana ku duwaay baan tegana maya tiri hurda la-aan wejigayga stress frustration waan diiqay waan kaa seexan kar waayey mar walba adiga baa hor imanaya iyo naagtii kale meesha ku jirta laqadabadeed igu waday ana daacad aan ku ahaa guur reer xalaal iyo fiijir aan rabay inaan samaysano adigana maxay haydana igu leedahay hadda yacni arrintana jirto ii dulqaado de waxa la dulqaatay wax kalaa walaala kala jira walaalayaal kala jiro marka wallahi waan ka xumaaday allah yahdig anu waxaan uu soo gaarmay gabadhaan ugu faraan dhahay laba istiqaar hadda ku hadduu khayr kaas ugu jiro uu ibanay hadduu khayr ugu jirin way kala tegeen meherkaas gurigaas inkasta shaydaan degdegin aan dhahay in allah macaa saabin ha sabartay gabadhaas walaalay maxaa hedeen ku caawi ku waani ana haddaad rabtid maadaama ana igu soo fartay tiri youtube-kaaga dadka walaalahaaga la qaybso arrintaa maxay ka dhihi lahaayeen mise maxaa tala ah tamanka kuna buu dhahay hadda aniga ma hayo meelaan ka keenana ma jirto mana hayo 10,000 xujayna igu tahay marka dhagweyntuu qabo ee hore doqon dhagweyn weeyaan ninkan uu tusay kuma jecli buu dhahay kuma rabo laakiin yadii way jeceshahay gurigi uu ka dhaxayaa xaaskiisan cusub uu hadda kursaday ayuu intaa ku maqan yahay uu rabaa inuu 24 saacadood la joogo laakiin yadii ma rabto waayo qof kale u laaban tahay ballantu ma ahayn ballantu waxa la isku guursaday inaad adigana aad naag la qabeen inuu naag la qabeen yani gabar kale la qabeen ayuu ballan tahayd walaalo marka dhagweynay nin aad jeceshahay kamab ama waxa dhihi lahaa halo qofka intay ku maqan tahay waryaa maxaa kaasi ah waryaa maxaa jira in adeerow faaraxow maxaa wadaa sheekadaad maxay tahay marka faaraxyaasha wareersan allah hanuuniye arrintan walaalay maxaad inaguna kula tilinsan gabadha walaashiin ah xujadan 10,000 ah kullu waa ballan ilaala oofiyo mooyaane dee diineen lagama bixi karo marka waxaan waxaad ku ducaysataa sujuud markaad mar walba ka baxdid yaa jabaaru samaawaati wal ardi ajbrul qalbi marka qalubta ilaahu deji miskiintaas ilaahayna khayrka ku soo aadiyo waa arrin xanuun kulul qofaad jacayl maanta jacaylna waad ogti muxuu yahay jacayl waa xanuun kulul yahay waa dhaawac qalbigii waa ka dhaawacmay hurda la-aan frustration ha loo soo duceeyo walaasheen ilaah qalubteeda ha u dejiyo ilaah qulubta ha noo dejiyo qulubta waa shay qaaliya qofku mooralka hadduu ka jabo qulubta ka jabtana waa mooral jab marka maxaa arrintan u aragtaan commentka walaal igula soo wadaaga waayo maadaama ii fasaxday gabadha walaashay magacna ma sheegi karo arrimana ma sheegi karo laakiin fasax baa laysuu sii amar arrin xanuun kululna weeyaan wallaahi maanta dhan waan waaninay gabadha kale waan waaninay waanooyina ku darsaday waxaan ani istiqaarka kaliya mooyaane dee wax kale iyo ilaaha la barya mahayne wax kale lama samayn karo asagana waxaa iminka ay tiri go-aan ay kusoo gaadhay 3 bil ayaan kuu qabanayaa jaanis 3 bil haddaad kusoo dhammayn weydo noloshaada ad gabadha amba waad qabi oo anaadi furi amba maxay haydeen anaadi qabiyo gabadhaha waa soo kala tegaysin anaadi qabsa sharafigu qabsa oo se bilantu ahayd amba gabadhaada qab oo la joog warqadeeda isii xalaal sharaf waa runa taas anoo ku raacsan amba ma jecli maanta inaan
faaraxa mid kale ila qabo I don't need it oo madax xanuunaan ka qaaday frustration timaasan hurdiiq staalka saas u istaagayaan allaahi hadii intaa way iga dacaayad saafran laakiin wallaahi waan ka xumaaday waan ka mooran jabay stress qofna ma doonayo qofna ma rabo hooye gabar kasta waxay jeceshaa iyo hooye kastaba iyo gabar kasta waxay jeceshay qof keligeed ku eg jacaylkuna qalbiguna laba saddex ma qaybsamo laba u qaybsamaa jacaylku waa laba not three markaa faraxyaalow waxaad samaynaysiin iyo lugtayni laaban inta khaldanaa sheegay aniga dadka aan yacni ma sheegayo dadka maxay idin khaldanayn hadday gabadhu ay raalli ka ahayn faaraxow walaalow ilaahay ka cabso cagaaga dhulka dhig sheekadan alfu leyl ha ka dhigini waleyl sheekadan seerigan soo afjar anisaasana hala soo afjaro hala soo yareeyo no stress walaal buuqays gelin salaadaad ku istiqaarkaaga ku ilaahay bari hanu soo duceyna walaashin qalbigaaga dejisaan dhahay ducada akhriso ilaahayna qalbigaaga u dejiyo walaashin hala soo duceeyo intaas maanta la share gareeyay share and like comment walaalayaal gacalso subscribe aan si dhiiri gelin aan isgarab istaagno shat aad noo soo wadaa qisooyin kalena waan soo wada insha allah bilmilaahi kariim iyo wax kasta soo arkay soo baqlaba waan la soo qaybsana walaalayaal wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu one love soomaaliya walaalahayga qaaliga mar walba madaxaad ii saarantiin allahuma baarik ilaahayaan sharfo sa ii sharftan allah idin sharfa idinkana sa ii qiimisa allah idin qiimeeyo muraadkeenana allah nagu sal allahuma amiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu khayr badan baa idin dhaafay